injiilka sida uu Matayos u qoray cutubka 6 iska jira inaydaan xaqnimadiina dadka ku hor samayn inaydin arkaan haddii kale abaal kuma lihidin aabbihiina jannada ku jira haddaba markaad sadaqad bixinayso buun ha ugu dhufan hortaada sida labawajiilayaashu sunagogyada iyo jidadka ku sameeyaan si dadku u ammaanaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad sadaqad bixinayso bidixdaadu yaanay ogaan waxa midigtaadu samaynayso si ay sadaqadaadu u qarsoonaato oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa ayaa ku abaalgudi doona oo goortaad tukanaysaan ha ahaanina sida labawajiilayaasha waayo waxay jecel yihiin inay tukadaan iyagoo taagan sunagogyada iyo meesha jidadku isku gooyaan si ay dadka ugu muuqdaan runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad tukanaysid qolkaaga qarsoon gal oo goortaad albaabkaaga xidhid aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa ayaa ku abaalgudi doona goortaad tukanaysaan hadalka ha ku celcelinina sida dadka aan ilaah aaminin yeelaan waayo waxay u malaynayaan in loo maqlayo hadalkooda badan aawadiis sidaa darteed ha ahaanina sidooda oo kale waayo aabbihiin waa og yahay waxaad u baahan tihiin intaanad weydin haddaba sida tan u tukada aabbahayaga jannada ku jirow magacaagu quduus ha ahaado boqortooyadaadu ha timaado doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo kibis maalin nagu filan maanta na sii oo naga cafi qaamahayaga sidaan u cafinay kuwa noo qaamaysan oo jirrabaadda ha noo kaxayn laakiin sharka naga du waayo boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa aamiin waayo haddaad dadka u cafidaan xumaantooda aabbihiinna jannada ku jira ayaa idiin cafiyi doona laakiin haddaana dadka cafiyin aabbihiinnu xumaantiinna idiin cafiyi maayo kolkaad soontaan ha ahaanina sida labawajiilayaashu u fool qulubsan yihiin waayo way isfool xumeeyaan si ay dadka ugu muuqdaan inay sooman yihiin runtii waxaan idinku leeyahay abaalgudkoodii way heleen laakiin adigu goortaad soontid madaxaaga saliid marso oo fool dhaqo si aadan dadka ugu muuqan inaad sooman tahay laakiin aad ugu muuqatid aabbahaaga meel qarsoon ku jira oo aabbahaaga waxa qarsoon arkaa wuu ku abaalgudi doonaa maal ha ku urursanina dhulka meesha aboorka iyo midhidhku ku baabi'iyaan iyo meesha tuugagu jebiyaan oo ka xadaan laakiin maal jannada ku urursada meesha aboorka iyo midhidhku ayan ku baabi'in iyo meesha tuugagu ayan jebin oo ayan ka xadin waayo meesha maalkaagu ku jiro meeshaasaa qalbigaagu ku jiri doonaa ilayska jidhku waa isha haddaba haddii ishaadu hagaagsan tahay jidhkaaga oo dhammina waa iftiimi doonaa laakiin ishaadu hadday xun tahay jidhkaaga oo dhammi gudcur buu ahaan doonaa haddaba iftiinka kugu jiraa hadduu gudcur yahay gudcurkaasi sidee buu u weyn yahay ninna laba sayid uma shaqayn karo waayo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa ama mid buu la jirayaa kan kalena wuu quudhsanayaa uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal sidaa darteed waxaan idinku leeyahay ha ugu welwelina naftiinna waxaad cuni doontaan iyo waxaad cabbi doontaan jidhkiinnana ha ugu welwelina waxaad u huwan doontaan naftu miyaanay ka roonayn cuntada jidhkuna miyaanu ka roonayn dharka
shimbiraha cirka eega waayo waxba ma beertaan waxna ma gurtaan maqsinana waxba kuma urursadaan oo aabbihiina jannada ku jira ayaa cunto siiya idinku miyaydnaan ka roonayn midkiinne intuu welwelo dherarkiisa dhudhun ku dari kara maxaad dharka uga welweshaan fiiriya ubaxyada duurka siday u baxaan ma ay shaqeeyaan ma ayna miiqdaan weliba waxaan idinku leeyahay xataa sulaymaan wakhtigii ammaantiisa oo dhan dhar uma uu gashan jirin sida kuwan midkood laakiin haddii ilaah sidaa u huwiyo cawska maanta duurka ku yaal oo berrito moofada lagu ridayo sidee ka badan ayuu idiin huwinayaa rumaysad yarayaalihow sidaa darteed ha ku welwelina idinkoo leh maxaannu cunaynaa ama maxaannu cabbaynaa ama maxaannu huwanaynaa waayo quruumuhu waxaasoo dhan ayay doondoonaan aabbihiinna jannada ku jira waa og yahay inaad waxaasoo dhan u baahan tihiin laakiin horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa oo waxaasoo dhan waa laydinku dari doonaa sidaa darteed berrito ha ka welwelina waayo berrito iyadaa isu welwelaysa maalinta sharkeedu waa ku filan yahay